السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أينو وذا أغنهاي waxa jirta kelmad lagu celceliyo aadna loo isticmaalo taasoo ah alwiqaayatu khayru min alcilaaj taasoo macnaheedu yahay ka hortagga ayaa ka fiican daaweynta haddaba haddii aad doonayso inaad kelmadda ka rumayso waxa lagugula talinayaa inaad isticmaasho khudradda khiyaarka oo aad ka cunto inta aad awoodo gaar ahaan xilliga hurdada saacad ka hor sida uu baahiyay mowqaca 24 ee ka faallooda arrimaha caafimaadka fadhigiisuna yahay imaaraadka carabta wuxuu soo bandhigay daraasado badan oo lagu sameeyay geedkan khiyaarka kuwaasoo lagu sheegay in cunitaanka khiyaarka ee xilliga hurdada saacad ka hor laga helo 10 faa'iido oo kala ah kow wuxuu jidhkaaga siinayaa biyo badan haddii jidhkaaga biyuhu ay ku yar yihiin isla markaana aad tahay qof aan biyo badan cabin waxa kuu fiican inaad isticmaasho khiyaarka isagoo beddelkaaga noqon kara biyihii aad cabi lahayd maadaama geedkan 90% uu yahay biyo laba wuxuu dejiyaa xaraaradda jidhka wuxuuna jidhka ka saaraa noocyada kala duwan ee fashanka saddex wuxuu jidhka ka saaraa sunta maadaama 90% geedkani uu yahay biyo afar wuxuu qani ku yahay qaar ka mid ah faytamiinada sida faytamiin A iyo faytamiin C kuwaasoo jidhkeenu u baahan yahay shan waxa geedkan ka buuxa macaadin sida macdanta silicon iyo potassiumka kuwaasoo aynu ka wada dharagsannahay muhiimadda ay jidhkeenu u leeyihiin lix wuxuu kor u qaadaa isla markaana wanaajiyaa awoodda dheefshiidka toddoba wuxuu door weyn ka qaataa caafimaad qabka indhaha iyo aragtidoodaba sideed wuxuu la dagaalamaa kansarka ku dhaca qanjirka loo yaqaan borostaataha sagaal wuxuu dawo fiican u yahay macaanka marka la eego maadada insulinta ee ku jirta geedkan toban wuxuu dawo fiican u yahay afqalalka iyo dhammaan xanuunada ku dhaca afka